عيارها بربرتي لصوحي ترتلوق باقي برشيا غيرقيتما بلابو سركعا صعب 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 بدنها لوقتمو kulanti waxaan wanaagsan ardayay meel walba oo joogtaan iyo si walba maqalkeenu idin soo gaaray ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijka tartan aqooneedka dugsiga Nageyle waa maalin Arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay 3 bisha 2 ee February sanadka 2021 qodobada aad ku maqli doontaan xubintana waxaa kamid ah kulamadii laga ciyaaray tartamada kala duwan ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Nageyle kooxaha Young Stars iyo Samadoon oo ciyaaray kulan ka tirsan tartanka Juurata Nageyle natiijadii uu ku soo dhamaaday kulankaasi ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa intaan xubinta ku guda jirno ciyaalihii shalay la ciyaaray oo kamid ahaa kii dhexmaray fasalada Form 4 iyo sidoo kale Form 1 natiijadiisa ayaad maqli doontaan waxa kale oo aan idin soo gudbin doonaa wixii kala qabsaday Ustaad Ibrahim Cabdullaahi Xasan iyo sidoo kale Ustaad Maxamed Saciid Yuusuf Sandheere mar kale ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee tartan aqooneedka Nageyle بربرتي لصوحي ترتلوق باقي برشيا غيرقيتما بلابو سركعا صعب 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 بدنها لوقتمو aynu ka horreynaa kooxaha kubadda cagta ee Young Stars iyo Samadoon ayaa isniintii wada ciyaaray kulankii labaad ee Junior Nageyle kaas oo toddobaadkii hore la daafuray waxayna soo bandhigeen ciyaar qurux badan oo ay jecleysteen dhammaan taageerayaashii garoonka joogay waxaana si gaar ah loo daawanayay laacibka kooxda kubadda cagta ee Young Stars Maxamed Amiin Cabduqaadir oo ciyaar wacdare cajiib ah ka dhigay isagoona markaasi loo doortay xidigii garoonka ciyaarta ayaa waxay ku soo ilaatay barbaro 5 gool iyo 5 ah oo ay labada kooxood ba ku kala baxeen saddex kamid ah 5 gool ee kooxda kubadda cagta ee Young Stars waxa dhaliyay superstar-kooda Maxamed Amiin Cabduqaadir waxaana markaasi Roosi ugu horeeyay ee tartankan loo taagay kabtanka kooxda kubadda cagta ee Samadoon Cabdi Ikrina dhanka kale shalay waxa la ciyaaray kulan ka tirsan tartanka fasalada dugsiga Nageyle waxaana wada ciyaaray fasalada Form 4 iyo sidoo kale Form 1 waxaana ciyaartaasi ku soo dhamaatay 3 gool iyo 2 oo markaasi guushu ay ku raacday fasalka Form 1 waxaana markaasi uu ahaa kulan labada kooxood ba ay guul markaasi u baahnaayeen balse waxaan eegi doonaa kulamada soo aadan oo fasalada ay u kala bixi doonaan fasalada kala shanaad iyo sidoo kale sideedaad sidoo kale isla shalay galabtii waxa la ciyaaray kulan ka tirsan tartanka horyaalka dugsiga Nageyle oo ay ka qayb galayaan 8 kooxood waxaana wada ciyaaray kooxaha Kaabo Stars iyo sidoo kale Somali Bees oo ay kala hogaaminayaan Ustaad Ibrahim Cabdullaahi Xasan iyo sidoo kale Ustaad Maxamed Saciid Yuusuf Sandheere waxaana la daawaday kulan ciyaareed aad u xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal badan oo labada kooxood u kala sacabtumayay daawadayaasha kulankii shalay waxa kamid ahaa macallinkii kooxda kubadda cagta ee Marxaba Ustaad Ciise Ibrahim Axmed oo toddobaadkii hore isla garoonkaas gudihiisa loogu geystay xasuuq ba'an waxaana ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Qaran oo 12 gool markaasi uga adkaatay waxaana shalay u sacabtumayay kooxda kubadda cagta ee Kaabo Stars waxaana la dhihi karaa guuldaradii labaad ayaa muddo 2 toddobaad gudahood ku soo gaadhay maadaama uu sacabtumay kooxdii laga adkaaday ee Kaabo Stars kooxda Kaabo Stars ayaa gool la hormartay balse waa ay ilaashan waayeen gooshooda oo waa la bareejeeyay oo haddana markaasi loo celiyay inkastoo ay gool kulaad heleen haddana kama faa'iideysan ugu dambeyn waxa ciyaartu markaasi ku soo dhamaatay 6 gool iyo 3 oo guushu markaasi ku raacday kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya barashada curiyaasha ayaana waxa ka badisay xifdinta qaacidooyinka xisaabta kooxda kubadda cagta ee Kaabo Stars oo ciyaartay kulankoodii afraad ayaa waxa ay leedahay 3 dhibcood waxa ayna markaasi forfeit ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Bahwadaag sidoo kale kooxda Somali Bees oo 4 kulan iyana ciyaartay ayaa waxa iyaduna leedahay 3 dhibcood kulankii ugu horeeyay oo markaasi shalay ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Kaabo Stars guud ahaan arday intaas ayaan ku soo gabagabeynaa xubintii ciyaaraha ee aad ku dhageysateen barnaamijka tartan aqooneedka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Nageyle intaan xubin kala mid ah ku kulmi doono nabadgelyo